بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal daawadayaal meel walba adduunka joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan rabaa in aan waxyar idinla wadaago cashar muhiim ah oo ku saabsan cuntada iyo caafimaadka. in muddo ah hawada waan ku kala maqnayn, laakiin adduun baan ku noolnahay, adduunkana waa iska mashquul badan yahay. marka ilaahay waxaan ka baryayaa in aad ilaahay subxaana wa tacaala anaga dhan uun xifdiyo. mashquulka ayaa iska badan. waxaan rabaa maanta in aan su-aal idin weydiiyo, su-aashaas oo ah sidee ugu fudud ee aad miisaanka culus ama miisaanka jirkaaga aad uga ilaalin kartaa. su-aashana waa su-aal dad badan ay weydiiyaan, laakiin jawaabo kala duwan ayay yeelan kartaa. jawaabahaasna waxaa fiican qofka in uu weeleeyo oo uu mar walba uu ku dhaqmo. waxaa laga yaabaa jawaabaha mid ka mid ah in usbuucan aad ku dhaqantid, usbuuca kale mid kale oo ka mid aad ku dhaqantid, usbuuca kusii xigta mid kale oo ka mid ah aad kusii dhaqantid. laakiin waxaa loo baahan yahay in aad su-aashaas jawaabo badan inay leedahay inaad ogaatid. mana aha black and white, ama kan qaado ama kaas qaado, ma aha. siyaabo badan baa looga jawaabi karaa. waxaan rabaa maanta marka qaabka ugu fudud in aan idinla wadaago qaab yar oo aad ku bilaabi kartid sida miisaanka aad uga ilaalin kartid jirkaaga. waxa weeye qofka bini aadamka ama sida caadada noo ah annaga dhaqan ahaan waxaa laga yaabaa maalintii 3 jeer in aad cuntada cuntid. cuntada koowaad waxaa la yidhaahdaa quraac, cuntada labaad waxaa la yidhaahdaa qado, cuntada saddexaadna waxaa la yidhaahdaa casho. waxaa laga yaabaa intaas in aad cabitaano kala duwan oo qasan aad cabtid. waxaa sidoo kale laga yaabaa in aad cabitaano kale sida shaaha oo kale iyo ama coffee waxaasoo kale aad cabtid. maanta waxaan ka bilaabaynaa wax yar oo aad samayn kartid. taasna waxay tahay in aad go-aansatid oo casiimo aad ku qaadatid cashada inaad ka saartid schedule-kaaga. waxaa ku ekeysanaysaa keliya quraac iyo qado. sababta waxaa weeye qofka caadiga waxaa loogu talagalay 2000 ilaa 2500 oo calorie ayaa loogu talagalay inuu cuno maalintii. laakiinse cashada haddaa meesha ka saartid, meeshaas waxaa ka go-aysa ugu yaraan 500 ilaa 600 oo calorie ayaa meeshaas ka baxaysa. markay ka baxdo usbuucii aad saas ku wadid maalin walba 500-600 oo calorie oo cabirka cuntada la yiraahdaa calorie aad ka goysid, waxay noqonaysaa marka jirkaaga inuu hoos u soo dhaco oo graafku uu hoos yimaado, oo waxa weeye aad dareentid miisaankaaga inuu hoos u dhacayo ama jirkaaga waxa weeye hilibka culayska zaa'idka uusan saarmaynin. saa daraadeed ayaa waxaa loo baahan yahay in aad cashada xoogga saartid meesha ugu fudud aad ka qaban kartid weeye. reason kalena wuu ku jiraa oo ah cashada markaad cuntid way adag tahay jirkaaga inuu saaro. sababtuna waxay tahay jirkaaga habeen baad galaysaa. habeenkii markaad gashidna jirkaaga waxa uu ogsoon yahay habeenkii in uusan sii dayn karin tamar badan ama energy badan. saa daraadeed cuntadii wuu haynayaa, jirkaaga ayuu gelinayaa, wuu kiib gareynayaa, mana sii daynayo. subaxii markaa quraacatid oo kale waxaa laga yaabaa qado intaada gaarin ka horba inay gaajo ku qabato, sababtoo ah jirkaaga uu kala yaqaanaa maalin iyo habeen waxay kala yihiin. markuu soo kaco subaxii wuxuu diyaar u yahay in uu shaqo galo, laakiin habeenkii wuxuu diyaar u noqonayaa in uu nasto oo uu seexdo. saa daraadeed waxaa loo baahan yahay cashada ka saar. waa qaabka ugu fudud, ugu sahlan oo markaasna aad samayn kartid, uguna macquulsan oo aad ku guuleysan kartid inaad ka ilaalisid jirkaaga hilibka ama waxaa weeye miisaanka zaa'idka ah. maanta istaraatiijiyadaasaan raba inaan idinla wadaago. khayr badan baan idin rajeynayaa. waxaan ogsoonahay mataqaanaa in aad dadaaleysaan. cajiradda haddii ay idin anfacday la wadaaga dadka walaalihiin ah, dadka saaxiibadiin ah, dadkaas leedihiin waxbay ka faa'iideysanayaan. khayr badan baan idin rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.